waxaa jiray saxaabi la yidhaahdo zaahir bin alxaraam. nin reer miyiya buu ahaa oo ashjaciya qabiilada khatafaan la yidhahdo ka mid a. waxaa nin baadiyaha markuu ka yimaado nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdaan markuu u yimaado had iyo goor ama durfuu sheegi jiray. durfadu waa wax nebiga farax geliya oo ka warramo. hadyadna wuu keeni jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam uu baadiyaha uga keeno. waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka uu ninkaasi baadiya ka yimaadee magaalada yimaado hadhow markuu anbabaxayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu anbabixin jiray. wuxuu magaalada kaga baxayo ayuu siin jiray markaa. si awgeed buu nebigu wuxuu lahaa ina zaahiran baadiyatuna wa naxnu xaadiruun. zaahir waa reer miyiga iyaga, annaguna magaalo jooggiisii baanu nahy. yacni isna waa ninka baadiye noo jooga. dhaqanku wuxuu iska ahaan jiray dadka baadiyo hadiyadday keenaan subag iyo caano iyo xoolo iyo wixii la mida. hadhow markay magaalada ka baxayaanna dhar iyo kaba iyo wixii la mida in la siiyo. maalin maalma ka miduu yimid zaahir muuqaalkiisa marka la eego waxaa la yidhaahdaa nin foolxun buu ahaa. dabeetana magaaladuu yimi isagoo suuqii wax lagu kala iibsanayo joogoo wax gadaya iibinaya ayuu nebigu xagga dambe kaga yimi calayhi salaatu wasalaam. dabeetana isagoo aan arkayn buu dhabarka kaga wayo saa u qabtay. ma arka zaahir ciddan dhabarka ka timee qabatay. man haada arsilnii buu yidhi. war waa kuma isii daa buu leeyihi. kadibna markuu jalleecay wuxuu arkay inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam. dabeetana wuu isku nabay. nebigu markaa intuu saa u qabtay buu